ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo yeelan doonta Jaamacadda Hargeysa. Dhismahan ayaa noqon doona dhismihii ugu ballaarnaa ee ku soo kordhay Jaamacadda Hargeysa. Gudoomiyaha Jaamacadda Hargeysa ayaa sidoo kale ka warbixiyay ahmiyadda dhismahan cusub iyo cidda fulinaysa kuna soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda, isagoo wasiirkuna ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo isna ka mahadnaqay dhismaha lagu soo kordhiyay Jaamacadda Hargeysa University. Waxayna yiraahdeen jaamacadda inta ay soo jirtay ilaa 760 oo dhismahan hadda aynu dhex taaganahay jaamacadda Hargeysa 760 baa la dhisay 760 wixii ka dambeeyay 2000 na jaamacad rasmi ay isu bedeshay inta laga bilaabo dhismihii ugu weynaa ee jaamacaddu dhisato abid ayaa hadda la dhisay 18 kalaas loo tilmaamay sideed xamaam laba hool iyo laba laab intaas oo dhan bay jaamacaddu hadda dhisanayso gacanta saartay iyadoo waliba isku tashanaysa wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaa dhiirigelin fara badan ka geystay ilaa maalintaanu meesha jaamacadda wuxuu warfadhiga ka kaca taas waxay keentay markaa jaamacaddu inay hor u kacdo inay bilowdo in iyadu isku tashato in iyadu ay raadsato maalgelin in iyadu awoodeeda ay soo saarto waan maamulka qabtay wax yar un bay ka sii horeeyay maamulmaleeya in ay ku fikiraan in ay wax soo kordhiyaan oo ay sameeyaan inay dayn u qaadaan jaamacaddii oo installment ay galaan maadaama ay arday badani ku jirto hadday wax maamulaan oo iska gooyaan oo wax macallimiinta laga jaro iyo wax maamulka laga jaraba ay guntigiijis galaan inay muddo iskaga bixin karaan haddii maanta anay abaaraha culusinahayna ee xukuumadda waxtar ka geystaan odhan lahayn laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta fad buu leeyahay in ilaahay roob degdega oo caama oo incaam yeela oo muslimin caam yeela oo gaar ahaan ay dhulkeenna abaaruhu sida xun uga taagan yihiin bariya galbeedba ilaahay naga soo furtaan rajaynaynaa ee xukuumaddu u taagantay mar walba baahida jaamacadduna intan kuma ekaanasee way jiraysaa mar walbana wayna ag joogtaa wixii aynu tari karayno waynu taraynaa fasallo siyaada ay سيادة سلحين إن اسكت تشران هذه الأمور وحنا ورا الشرف كرامويا يتكستو بنتو كانوا حلو بهاي إنه حلقان يعني حلقان وقبل كرام هذا قف حلك نوي بيسار ولا سار ولا محمد قبص كرام ما تنتهي ومقطعون وكفكروا فكهذه يدرتو أمانيين حكومة أنا مرة بقول بحيل بارت سوقل ولا قرب شوية سو يصير شغلة وحلو جرا وقت عذر رتي أبارة dalkii aynu gelinay meedsan gelinay shacab iyo dawladda sidii maanta loo taageerin lahaa maanta dadkeena maanta marna waxa joogtaa dhaqaalayn dhaqasho marna dhibashi joogtaa marka maanta waqti wax la dhisno xukuumadda maanta waxa la xiyaan bartiisa waxaan u jeedinaynaa horena ugu bixinay iminkaan ku bixinaa inagoo iskaashayna dhammaanteen abaaraha runtii baahsan ee dalka dhacay runtii galbeedka u badan iyo sanaag bari ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gacanta إلى وحبل وجرسيمية مالك كليه وإلى قعدت نقاضة بالوجودية بدي dhismaha Jaamacadda Hargeysa ayaa ahaa qaar qadiimi ah iyadoo la tilmaamay dhismaha jaamacadda bilicdeeda wax badan ka bedeli doono. Cabdikariin Axmed oo xaashi Gunje, Colson TV, Hargeysa.